kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga daawanaysay dhawaan waxa uu wasiirka lacagta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ku dhawaaqay in ay soo daabici doonaan lacag cusub oo bedeli doonta noodka kunka shilin ah ee haatan laga isticmaalo dalka Soomaaliya ayaa markaasi hadalayntiisu noqotay mid ugu badan ee dalka Soomaaliya gaar ahaan suuqyada ganacsiga laga ka jirtay iyadoo markaasi dad badan isweydiinayaan sida ay uga dhaqan gali karto dalka ayaa haddana waxaa jirta in markaasi dawlad goboleedka Puntland iyagu dhinacooda ay sheegeen inaysan haba yaraatay lacagtaasi u hoggaansami doonin la soo sameyn doono hase ahaatee waxaa in dhaweyd socday hadal haynta la xiriidha in dawladda Soomaaliya soo daabici doonto barnaamijkaasi lacagta cusub ah haddaba si aan wax badan wax uga ogaano arrimahaasi ayaan waxaan waraysi la yeeshay xildhibaan Caashe Axmed Cabdalla oo kamid ah xildhibaanada golayaasha baarlamaanka dalka Soomaaliya waxaanan wax ka weydiinay arrimaha la xiriira barnaamijkaasi lacagta cusub lagu sameynayo iyo waliba arrimaha dib u heshiisiinta haatan ka socota magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia xildhibaan Caashe ku soo dhaw ETN ugu horeyn waxaa dhawaan wasiirka lacagta Soomaaliya uu sheegay in ay sameynayaan soo daabici doonaan lacag cusub adinku waxaa tihiin golaha sharci dejinta oo fasaxa u siinaya marka barnaamijyada noocan oo kale xukuumaddu ay ku dhaqaaqayso ma lidin soo gudbiyay arintaasi marka koowaad waan mahadsantahay Maxamed waan muddo ah waa raadinayay arintaas oo kuurgalideeda iyo sida wax uga jiraan waxaan arintaa rumaystay markii wasiirka lacagtu uu ka sheegay warbaahinta daad inay soo daawacayaan lacag sideedabana waxa weeye xukuumaddan iyada oo hadda jirtaa waxa caado u noqotay oo ay baryahanba ka shaqeynayeen siday baarlamaanka Soomaaliyeed uga madax banaanaan lahaayeen oo wax alla waxay doonaan ay sameeyaan haddii ay noqoto iibsigii dhulkii la iibiyey ee Soomaaliyeed ee badda ahaa dhuleedkii badeed oo la iibiyey sanadkii tegay iyo hadda maxaa la yiraahdo dagaaladan hadda ay cilaaminayaan oo aan baarlamaanka la marinaynin maxaa la yiraahdo lacagahan la soo sameeynayo waxayna ka faa'iideysteen security la'aanta wadanka ka jirta maxaa la yiraahdo magaalada Muqdisho inaan wax security rahantii ay wuxu dhintay baarlamaanka ama baarlamaanka shaqooyinkoodii la gaabiyay gaabinta shaqooyinkooda la gaabiyayna waxay keentay in waxyaabo badan oo taqrifo lah ay sameeyeen aan ku soo dhawaado lacagta lacag waxay sameyn karaan markay heshiis shirkad la soo galaan wax kastaba ha noqoto oo shisheeye ah waxa weeye golaha xukuumadda ayaa la keenaa golaha xukuumaddu way u codeeyaan hindisa sharciyeed bay ka dhigaan markaas ay u codeeyaan baarlamaanka u soo gudbiyaan ka bacdina baarlamaanka waxa guddiga dhaqaalaha ama guddiga maxaa la yahay finance-ka labadaas ayaa ku shaqo leh inay ka baaraan degaan markaas ay ka soo dhigaan maxaa la yahay hindisa sharciyeed la mariyo laga doodo golaha baarlamaanka la keeno laga doodo wax lagu daro wax laga gooyo ka bacdina ama la isku raaco oo la diido ama la isku raaco la yeelo lama marin habkii xukuumaddan hadda dhisan ama groupkan Djibouti laga soo abaabulay totally waxay marin habaabiyeen ama ay dhaafsan yihiin inuu wadanka uu yahay baarlamaanku hay'adda ugu sareysa way baabiyeen haday dhaqaale ahaan tahay haday jiritaan tahay laakiin mid bayeen ogeyn in baarlamaanka la'aantiis aanay waxba noqon karin hadii qof walba oo baarlamaani meeshiisa isku casilo it means iyaguna waxa weeyaan halkaas ay ku baaba'ayaan marka lacagtan sideedaba aan ku soo noqdo lacagtan waa xaraan golob waxay hayday baarlamaan lama soo marin guddiga aniga aan ku jiray oo ku shaqada lahaa lama soo marin hay'adaha warbaahinta waxa laga sii daayaa markuu baarlamaanku maxaa la yiraahdo uu baasiyo oo madaxweynuhu markaas uu soo saxeexo oo markaas bulletin boardka lagu soo qoro oo faafinta la geliyo markaas warbaahin la gelin karaa marka waxa way totally nidaam ahaan waa khariban tahay dalka Soomaaliya lama keeni karo lacag aan la isku raacsanayn waa gartay marka hadda waxa leedahay barnaamijkan cusub dhaqaalaha Soomaalida saameynta ku yeelan doono suuqyada hadii ay saameyn doono lacagta lagu soo daabacay haba yaraatee baarlamaanka lamana horkeenin mana loomana soo gudbin absolutely markii arrimahan la wadwaday baarlamaanku marna ma kulmin wuu xidhnaa loomana soo gudbin kamana ay hadli karaan waxaan baarlamaanku aanay baasin
kama hadli karaan mana keeni karaan waxaana dalka Soomaaliyeed nama qaadi karo maanta lacag cusub oo aan securitygiisa iyo ciidankiisa midna aanu dhisnayn oo aanan goboladii gacanta ku haynin sidaa darteed waxa weeye waa xaraan maqdaca cida la cidii ka qayb qaadatay oo doonaysa inay samayso waxa weeye waa mafia type kale oo maxaa la yiraahdo tii baarlamaanka diiday oo kale weeyaan xildhibaan caasho goorma ayuu dawladdu go'aan qaadan kartaa oo ay lacag ama wax bedeli kartaa oo barnaamijka sida hadda lacagto kaleeto goorma talaabadaas sharciga u baneynay marka dhinaca sharciga dawladda federaalka u yaala aan eegno waxaa ka horeysa security-ga ka horeeya iyo nidaamka nabadgelyada ayaa ka horeeyo wax walba ka horeeyo dib u heshiisiinta ka horeyso dalka dagaal baa ka jira goboladii 1% gacanta kuma hayno waxaan rabnaa inaan negotiation la galno walaalaha kale naga soo horjeeda waxay u baahan tahay dalka in la isku soo dhaweeyo waxay iyaba u rabaan inay lacagta hadda u soo sameeyaan inay ka faa'iideystaan bay rabaan sidii dhulbadeedkii looga faa'iideystay oo kale in looga faa'iideysto iyo faa'iido ugu jirtaa lacag waxay faa'iido ugu jirtaa cidii doonaysa inay arinta maafiyada ah ku kacdo IMF to lama socoto World Bank lama socdo baarlamaan uma baas garaynin waxa weeye percentage-ka ay maxaa ku bixin doonaan cidimo oga meesha ka soo daabacanayaan cidimo oga waxa weeye waa wax suuq madow ah oo maxaa la yiraahdo la rabo shacabka Soomaaliyeed in lacagtooda iyo xoolahooda lagu la wareego waad ogtahay lacagta Soomaaliyeed marxalado badan bay soo martay 20 sano bay maxaa la dalku dhibaato ku jiray dawlado badan oo iyaga kuwan ka xoog badan ba soo maray dalka qolana isku madayn because waxaana isugu dayeen waxa weeye waa in shacabku ka wada raali yahay waa gartay hadii aan dhinaca kale eegno dawladii ka horeysay madaxweyne Sheekh Shariif oo hogaamiyaha ka ah madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxa ay dhaqan gelisay baasaboorka elektarooniga ay baasaboorka loo yaqaano marka ma la oran karaa iyagoo taa ka duulaya ayay dawladdan inay ku dhaqaaqaysa in baasaboorka inay lacag cusub dalka ka hirgeliso oo taa lagu xusuustayna dawladdaasi nidaamka baarlamentariga u yaala baarlamaanka iyo xukuumadda xiriirka ka dhaxeeya boqolkiiba 90 way soo martay waana wax kastana hindisa sharciyeedka baarlamaanka loo soo gudbin jiray ama ha baas ama yu baasin mar baa jirtay maxaa la yiraahdo ay mar ay ku dhaqaaqeen inay maxaa la yiraahdo baasaboor cusub sameeyeen markaasoo marxalad maxaa la yiraahdo ay taagnayd iyadoo markaa hindisa sharciyeedkii loo soo gudbiyay baarlamaanka oo baarlamaanka aan wali baas garayn ayaa la sameeyay laakiin waxa weeye taas waa ka duwan tahay totally waa ka duwan tahay because shacabku waa u baahan yihiin baasaboor ay ku baxaan waayo baasaboorradii hore ayaa waxaa galay musuqmaasuq badan waxaa galay in dad ajnabi iska qaataan in fraud badan lagu sameeyay sidaa darteed baasaboorkan iyo baasaboorka Soomaalidu way u baahnayd baarlamaankana gadaal in laga mariyo bay ahayd marka maxaa la yiraahdo ay shaqaysay waana lagu faa'iiday laakiin lacagtu waxa weeye waa type of robbery waaye waa dhac la rabo in shacabka Soomaaliyeed lagu dhaco waxaana uga digayaa kuwa ku hawlan inay ka feejignaadaan baarlamaanka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa inay shaqadooda gartaan oo ay shir degdeg intay qabtaan arinta ay ka hor yimaadaan oo maxaa la yiraahdo aanay sameeynin wax shacabka Soomaaliyeed wax loogu dhimo waa gartay baarlamaanka aad ka dhawaajisay inagu baarlamaanka u imaan doona hawlihiisa hasahatee marka wadan lacag loo sameeyo lacag uu soo daabacan rabo shuruudaha looga baahan yahay inuu la xiriiro hay'adda u qaabilsan lacagta caalamka ee IMF ta loo yaqaan fadhigeedu ee Washington in la xiriiro oo la sameeyo oo sharciga miyuu qaba khasab dalkeenu dal cusub ma aha sharci buu lahaa lacagta lagu soo sameeyo regulations bay lahayd lacagtu cadad bay lahayd waxay lahayd maxaa la yiraahdo hab maamuus loo maray lahayd totally kuwani dhinacii way mareen bileedkii lacagta Soomaaliyeed lagu sameyn jiray wuu yaala waa la hayaa waxay u tagi waayeen meeshii looga daabici jiray Soomaaliya waxba jira wax la baroorto Soomaaliya waxay tiraahdaa orgiga ka weyn waxa loo garab maraayo oo loo hororsanayo in hadda lacag la sameeyo baa meesha ku jirta lacagaha lagu sameynayo lagu daabacayo maxaa la yiraahdo lacagaha lagu soo daabacanayo waa lacag millions gaalaysa waxa fiican in lacagta maxaa security-ga iyo amniga lagu bixiyo nabadgelyada lagaga shaqeeyo dib u heshiisiinta lagaga shaqeeyo baarlamaanka kala tagay oo maxaa la dhaqaalahoodii lagu ciyaaray
oo maxaa la yiraahdo laga dhigtay maxaa la yiraahdo traashka laga dhigtay in dhaqaalaha la siiyo weeye iyaga in la siiyo weeye in maxaa la yiraahdo dadka bukaan socodka ama kuwii dhaawacmay ama kuwa caafimaad darrada ama kuwa qaxootiga ah oo masaakiinta ah oo qaxay in la siiyo weeye lagu caawiyo weeye ma aha in commission laga raadiyo lacag baan soo sameynay